niman culimo ah oo isdiray iyo arintaa culus laascaanood iyo aagga ilaa saxdheer ilaa dharkeenga iyo ka aloosan isdiray iyaku haddana maalmahan ku shirinayay guddiyo ka kala socda labada beelood ee Bahar Same iyo Khayr Cabdi iyakaa shirinayay shuyuukhdaas culimadaas iyaku isdiray ilaahay ka jaasa mariyo annaku laakiin kalsooni buuxdaanu ku qabnaa labada beeloodna waxaan baaqan aan rabaa inaan u jeediyo war haddii idinku aad isu iman weydeen haddii idinku waxa idin dhex yaalla iyo waxaad isu tihiin aad garan weydeen oo caqli iyo xikmad loo isticmaali waayey war cid kaloo idiin soo gurmanaysaana ma muuqato nimankaa culimada ah yaan jeclahay inaad la shaqaysaan inaad hawsha waxaan aaminsanahay dad idiin dhaxa oo ehelana waayihiin waxaan iyana runtii jeclaan lahaa maamulka Khaatumo diyaar buu wuxuu u yahay maamulka Somaliland inuu arintan la iska kaashado laga wada shaqeeyo maamulka laftiisa roy colaado iyo dhibaatooyin badan oo soo jireena muuqda oo ay tixgelin mar walba in la tixgeliyo ay mudan tahay waxaana laga doorbiday hadda in laga wada hadlo waxaan u maleynayaa maamulka Somaliland isaga laftiisa in kalsooni ummadda ilaa heer ay ku abuurayso isagoo u sacyigelaya oo dhab ah sacyigelin dhab ah oo aanu jecelahay inaanu kala shaqeyno inuu arintaa u soo banbaxo ragaanu ka ballansannahayna waaba jiraan arintaasu abaar iyo colaad dadka kan labaduba uma wada adkaysan karaan mid walba keligeedayba dhabar jabin u tahay haddayse labaduba ay ummadda ay mar ku soo wada beegmeen waa arrin runtii aada iyo aada u culus waa arrin aan jecelahay labada beelood in ay dad hadda la isu soo jiijiidayo oo waxay isu yihiin iyo waxay isu noqon karaan lagu hanuunin kara maaha waxay isu yihiinna waa yaqaaniin ilaahayna inuu iyaka isbaday oo meel ku wada abuurayna waa yaqaaniin waxaan jecelahay hadday iyaku isdiri waayeen oo ku aadi waayeen nimankaa culimada ah inay kalsooni buuxda siiyaan kula shaqeeyaan annaguna waa ballan waa kula shaqaynaynaa wixiina looga baahdaba maamulka Khaatumo haddaanu nahay waxaanu ka hakranaynaa ma ay jirto waxaanuna baaqan laftiisa aan Somaliland maamulka Somaliland aan jecelahay iyana si sugan in ay arintaa doorkooda ay uga qaataan oo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in kuwa iyo kuwii kale ee ama hadda weli taagan ama kuwii kale ay nagu soo baxsadaba meel in looga soo wada jeesto labada arrimood intaasaan jeclahay inaan ka idhaaho cali khaliif galeydh ayaa baaq u jeediyey qurbo joogta labada beelood ee Khayr Cabdi iyo Bahar Same isagoona sheegay in iyaguna ka soo qayb qaataan sidii loo damin lahaa loona joojin lahaa colaadaasi baaqaygan aan iyana jeclahay inaan ku xuso qurbo joogta labada beelood in badan baa labadoodaba dibadaha ka joogta qaar kamidii fidmadayba kamid yihiin qaar qurbo joogta kamida fidmada meesha taalla yay kamid yihiin kuwaas uma badna laakiin in badan oo aan wax badan ka qabanaynin ayaa jirta waa laga yaabaa kulli loogama baarmo arinta tan nin Cali Ismaaciil Guraase la yiraahdo dalkaas Sacuudi Arabia ku nool inaan saaxiibnahay muddo badan isnaqiinay ragga isagoo kala ah waa nin la yaqaano waa nin ay aad iyo aad u dhibayso waxa meesha dhibaatada ka aloosan isaga iyo waxa la midka ah ee soo kicitaami kara ee iman kara waa jecelahay inay yimaadaan wixii aan iman karayninna inay meel uga soo wada jeestaan arinta tan oo dadku hawsha isku bartaan oo khalad waa la geli karaa ibn aadam dhan baa khalad gelaya marka kan in khaladka lagana waantoobo wixii waajibku uu yahayna
nabad baa wax walba iyo walaalnimaa wax walba ka macaan in taa meel looga soo wada jeesto oo dadka qurbaha ee labada beelood iyo inta kale ee reer Sool iyo Sanaag iyo Cayne inay arrintaa ku taakuleeyaan uguna duceeyaan ciddii markaa ay u muuqato inay gardaran yihiin labada beelood ama afraad ka mida labada beelood in dadka ummadda reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn dee ay ogaadaan oo kulley iyakunba u hela in wixii ay pressure ama culays saari karaan inay arrimaha kan ay ka waantoobaan dayana waa u taallaa